السلام عليكم أصحابتي يوتيوب كسو دواذا بليز سبسكرايب دي هدانا هورا إلى جوجين هدا إلى جوجتنا سودو مركلة يعني سومانتا وح ربا إنان وحيركا إلى هذا أرهنتا سومالي كدعيسة هدير أو قبلها الكفسنا يولي ديلاي أو صوبة ذانيسا مركستابا مركا كدن بيسا سو أول وحي أهان جرتي قبلها الكفسن جري ولقيت بقى سومالي كدعي جرتي we know هادا waxaa ku darsamay gabdhihii intii la kufsado in la dilo ma fahantay awal kufsi kaliya sheekada ahayd gabdhaha waa la kufsan jiray waa la furxumeyn jiray waa la bahdili jiray that was normal haddana waxaa kusoo darsantay in gabdhihii la dilo oo aakhiro loo ma garan karo marka waxaa kalifaya oo lacala haddii badilaaniinba oo iska dhaafaaniin awal baan baciid raacanaysay oo dabagalaysay iyo booliis fiican iyo arrin like wixii wadankii uu normal ka yahay weligii dumarka xaquuqdooda lagu tuman jiray oo aysan awal baciidna dabagalaynin sababta keentay inay dilaaniin waa wax la yaab leh oo cusub kufsiga laakiin weliguu jiri jiray bahdilka weliguu jiri jiray carabahaas wax maqli jiray gabdhaha marka la kufsado waa la dilaa because sababta loo dilo maxay tahay iyaga sharci adag baa ka jira haddii la ogaado gabadha in la kufsaday then qofkaas xabsi daa inuu aadaya ciqaab adag uu maraya taas waa ay u dilaaneen marka laakiin Soomaaliya oo cidbaba isku raacaynin gabar weligeed la kufsan jiray la dili jiray la bahdili jiray arana waxa ku kalifay inay haddana dib ugu daraaneen maanta waxaan Facebook ku arkay saaka markaan hurdo saa ugu soo kacay markaan Facebook furay waxaan arkay gabar yar oo laga yiri waxay jirtaa 19 years la dilay niman badan intay kufsadeen la kufsaday first haddana la dilay haddana dabaq laga soo tuuray gaalka ugu xun oo ugu arxan ka daran sas kuma dhaqmo allaaba iska dhaafa qofa isku diintihiin qof ku garanayo qof wax laga yaabaa inuu sheeka ka dhexaysa oo whatever inkastoo sida familkeed markii la wareysay arkay ay dhahayeen gabar baxda ma aysan ahayn gabar oo iska yaro hadda iskuulka dhamayso xaafadeed iska joogta bay ahayd oo meelna u bixin ayadeed ay sidii dhahaysa qofkii ay la joogtay ayadeed dhowr soo dhaqan jirta Fridayska ama jimcayaasha sidii bay ku baxday marka ma dhexda laga qabsaday ma qof maybe ila sheekaysato oo aado aamintayba shirqoolay whatever gabadhii waa la kufsaday wayna dhacday in la kufsaday oo la dilay marka aniga ma dhahay arrintan way soo yaraanaysaa dabcan way sii badanaysaa sidaan u jeedno ma fahantay mana dhahay nimanka waxaa sameynaya way kasoo reynayaanin oo horaa loola hadlay oo dad aniga iga waaweyn iga caqli badan iga horeeya maxaan kuu sheegi karay dad badan ayaa ka hadla maalin kasta every single day especially dumarka u badnaadaanin ragga waxba kama dhahaan and we all know that maba kala jeclaba inta kuwa kufsanaya dil ku subinaya waxa uga daran kuwa u sacabtumaya social media kuwa ka hadlayaan xabad yar oo aan micno lahayn oo iyaga wax laga yaabo YouTube real iyo waxaas ah ama social media ku jiro oo view ama magaca macaanimo ku raadinaya ma ahane qof kale oo ka hadla meel qof dawlad ku jiro oo ka hadla malahano madaxa qof culimo ah ma jirto culimo ka hadasho ma jirto hal sheekh oo Soomaaliya ka hadlaya waxa gabdhaha loo geysanayo ma arkaysidaad laakiin maalinta gabar Soomaaliya qalad yar ka dhaco ama gabar Soomaaliya oo qaawanin intuu wax ka dubo social media soo geliyo culimada dhan ayaa ama iyada intay isqaabis iskeeda soo geliso laakiin culimada dhan literally waa isku soo baxayaan diintiya laga baxay wara social media hasaa loo wareejinaya laakiin markii gabdhaha la dilayo markii la kufsanayo markii xuquuqdooda lagu tumanayo wax kasta xun markii lagu suubinayo qof ka hadlaa ma jirto gabdhaha Soomaalida oo iyaguna dhowr xabo oo maxaan ku sheekay social media ku jira ama waxaas ay ka hadlaanin waa laga yaabaa gabdho badan horta ay ka hadlaan runta markii laga hadlo laakiin nimanka waa ku sameynay ko kale they just the same marka maxaan kaloo talin lahaa gabdhaha ani hadii especially aad Soomaaliya ku nooshahay qurbaha waxyaalahaas badankood kama dhacaanin because wadankan sharciya ka jira waxa ka jira way baqaanin dadku waxay sameyn lahaayeenba way baqaanin oo kuma dhacaanin oo like police wacan kartaa like
oo badana ama mid qabo ay guriga la joogto oo gaadnimo ku sameeya ama ma ahane qof intuu la sheekaysto banaan intuu ula baxo ama gabdhaha banaanka laga dafaayo waxaas ma dhacaanin because baaritaan baa jira hadda askarta u cato like 5 daqiiqo lagu imaanayaa marka laakiin gabdhaha Soomaaliya jooga maantay oo aan haysan accesskaas dhan oo aan haysan qof difaacayo oo aan haysanin qurbaha adiga nimcada taala alxamdulilah rabbil caalamiin markii aan ka hadlay dhinaca safety ama dhinaca amniga Soomaaliya waa aragteen wadan safe ma aha wadan amni ma aha wadan like dumarka xuquuqdooda lagu ilaashana ma ahan haddii wax ku dhacaanin gabadha ama la kufsada ama la dilo odayaal baa isku imaanaya iyaga lacag yar qaadanaya dabeetana asaasaa gabadha xuquuqdeeda iyo dhibkii iyo halkaas lagu daminaya khalaas qofkii wuxuu ku dhacay isaga ku dhaceen lacagtana iyaga kala qaadanaya saasay badanaa u dhacdaa marka please hadaa Soomaaliya joogto maxaa lagaaga baahan yahay hooyo hadaa ta wax lagaaga baahan yahay inaad ildeeraatid because waxa kula nool cadow kula dhashay oo aan arxan ku galaynin oo isku mid wada ah walaa mid sheekha walaa mid madaxa walaa mid dhibaato geystay waa dad isku wada mid aan ka naxaynin markasta raba inay laakiin waxan kugu suubiyaanin oo aan hadhowna waxba laga qabanaynin adiga maxaa u baahantay inaad qabatid gabar yar hadaa dhashay please gabdhaha ha u dirin suuqa xilli waliba leyd ah banaan ha u dirin ilmo yar oo 12 sano jirto dukaanka barafaa wadirsan xataa hadaa xaaladaaba ku jirto oo gabdhihii la aftuubayo oo la kufsanayo 12 mid jirto iyo mid bil jirto iyo mid 20 jirto aan la dhaafinin ilmaha yarkaa suuqa ha u dirin kaligiis please oo iskuul ha u dirin kaligiis bas baa jira basas ka saar haddii aan awoodin gacanta qabso iskuulka gey gacanta kasoo qabso kasoo kaxay ma jirto lirolo qof gurigaaga wax kugu suubin kara qof kugu talagalay inuu ku dila ma ahane oo wax ku talagala soo sameeyay aan waxna kala jeclayn taas meel uma dhaafi kartid laakiin qof wax xun inuu kugu sameeyo gurigaaga dhexdiisa kuma suubinayo laakiin gurigiisa markaa u raacdid of course wuxuu rabo qof kugu suubinaya because powerkiisa gacanta ugu jira xooggiisa gacanta ugu jira gaarigiisa hadaa raacdid xooggiisa gacanta ugu jira wuxuu rabo kugu suubin kara marka qof laba ayaamood la sheekaysatay qof aadan garanaynin oo iska baratan telefoon ama waxaasayto qof aadan ba ku kalsoonayba hadaa taqaan xataa aadan saansaanta qofku waad garanaysaa markuu xumaan u socdo markuu wuxuu rabo u socdo saansaantiis aadan ka helin inaad u boginin haba qofka ilaa isku dheeraanaysin oo si fiican isaga baranaysiin kalinimo hala noqon iyagu moolaadan hadaalada gurigayga iyagu imo khalaas hadaa hooyo kuu joogto oo cid kale kuu joogto aaba kuu joogta kaga baqaso telefoonka aadin ku filan haba la kulminba haddaan guriga lagu ogolin inaad keentid hala kulmin waxaa jira YouTube baa jira maanta YouTube meel kasta literal wadan kasta aad joogtid waa isticmaali kartaa qof kasta Soomaaliyeed oo fahmi kara English ku fahmi kara haddaan English fahmaynin Carabi Soomaali dadka way ku hadlayeen iskuulka wad ku Carabi waa fahmi kartaa tag YouTube-ka gali sida like naftaada loo difaaco baro hadii jiraanin jimam iyo waxyaalaha tag baro hadaa banaanka u baxaysid qaado mindi wax uu qaado always wax like huba qaado suuqa tag soo gada baskoolad maxaa ku diidaya maxaa ka celinaya baro ninka soo baskoolada loo rido ma baran waa artan qurbaha like nin iyo naag waa kulli waa police waa military qof kasto xataa shiciba baskoolad buu haystaa wadankan hadda Mareykanka qof kasto oo shiciba xaq wuxuu leeyahay like waa right side waa qaadan kartaa baskoolad haddaan criminal background aadan lahayn ama maxaan ku sheekraayay aadan dambi aadan samayn waa tagaysaa license waa soo apply garanaysaa waa sida ID camal adoo gaariga wadaay waa soo apply garan waana qaadanaysaa Mareykan qof kasta wuu haysaa nin iyo naagba qof kasta oo awoodi kara oo license soo qaadan karo aan wax dambiya ama farako online license tagaysaa waa soo xareynaysaa waa soo qaadanaysaa tababarkaad qaadanaysaa markaa tababarka qaadatid lacagta iska bixinaysaa gaarigiisa qofan baskoolad ugu jirin oo wadanka u dhashay wuu yar yahay ama nin ha ahmada naag ha ahaado iska dhaafo mentality-ga gabdhaha madaxa looga gumaysto oo Soomaaliya ka jira oo like nin baa wax kasta qaban kara naag wax ma qaban karsid ma qaban karto kuwa askarta ku jira waa naago maxay ku dheerihiin maxay kaaga fiican yihiin way bartaan way soo gateen like ama dawladda wixii tababar la siiyay tababarka adiga qaado waliba Soomaaliya uu ka sharci adag yahay inta suuqa tagta sharci uma baahnid license uma baahnid waxa ma baahnid suuqa inta tagta soo gadan kartaa baro walaalka ay bardhe aabaha ay bardhe kan kula sheekaysanaa ay bardhe sida baskoolada loo isticmaalo sida loo rido gaari hadaa wata gaarigaaga gasho ninkan oo wax kugu sameynaya wax uu ku dheer yahay
baskoolada isaga haduu soo qaatay oo bartay adigana waad baran kartaa baskoolada uu kugu baaranayo mindida uu kugu baaranayo isaga haduu soo qaatay adigana waad qaadan kartaa naftaada inaad difaacdo isbar wixii kugu dhaca oo qoraal ah lama diidan waa qoraal laakiin dadaal laakiin markii aad meeshas ku nooshahay oo gabadhaada 10 sano jirto ama 8 sano jirto laba saaxiibeen suuqa u dirayso roocana isoo god oo braf isoo god xagga aadam iskuulka kaligeed u dirayso maalinta cad marka gabar tahay maxaan ku shakiraay gabar normal oo nin shukansanayo baladi aragta gaarigiisa aad dalaq haysid kii habeen shukansataba ah hotel u raacaysid kii habeen shukansataba ah banaanka la aadaysid kii habeen shukansataba ah gaarigiisa galaysid gurigiisa u raacaysid aana ogtahay waxa dhacaya qaladka ayaa iska leh adiga iska leh marka iska ilaaliya please iska ilaaliya idinka wixii idin qor waa idin qoran laakiin inta dadaal kartiin dadaala inta dagaalami kartiin dagaaltama barta sida loo dagaalamo sida dadka la isaga celiyo jiimka taga meel kasta jiimka ku yaala literally meeluhu Soomaaliya jiimka online maanta ma jirto hadii aadan awoodin waa garan kara dadka qof walba isku level dadku ma aha hadii aadan awoodin khasamaha inta jiimka tagsiina biraqa qaadid lugee tag buurahaas meel ka Soomaaliya buur baa ku taal hiking samee wax walba samee jirkaaga strong uga dhigi lahayd oo like ku tababaran lahayd guriga ku tababaran kartaa adoo joogta qof Soomaaliya maanta aan telephone internet haysan ma jirto everything maanta wax kasta YouTube ku jiraan adoon gym aadin bad YouTube ka maxaan ku shakran inta gidista exercise video any exercise asubin kartaa adoon gym rida waliga ka istaagin ba muruqa harta dhisan kartaa saarta iska dhigi kartaa aad casharada dhan oo self defense-ga waxaad ka qaadan kartaa ama sidii naftaada loo difaaco waxaad ka qaadan kartaa YouTube-ka iyo free ku jiraan marka please ilaahay hadin xifdiyo iskana dadaala wax badana waxyaalaha la sheegay oo ka dhacay Soomaaliya cadawha nimanku way yihiin laakiin idinkana tiina waa ina idinkana qaybtiina qaadataan gabadha yiriska oo 19 sano jirtay oo iskuulka hadda dhameysay oo mustaqbal iyo future islahayd maybe jaamacad gal islahayd maybe guurso islahayd maybe meel kale aad riyo kasta oo qof min aadan haystay maanta fiir qabri bay taala sida u dhimatana waa wax silac ah dabaq qof laga soo tuuray lagu talagalay inuusan xataa noolaan badbaadin maxaa dheerta waa ina isweydiisaa maxaan dheerahay anigu maxaa kaga fiicanta waxna kaga ma fiicin ninka saa u galay problem meeluhu jooga ama walaalkiisa jooga ama mid lamid ah jooga ma la qabto kuwaasayto probably not hadii la qabtana laba ayaamood ma xabsi ku jiraan lacag baa laga qaadanaa ama waa la sii deynaa suuqa lagu sii deynaya gabar kulu sabru ku sameynaya ha aaminin qofna ha aaminin dunidan maanta inaga waxa ina ka dhacsan mentality dadkeena dhaqan aad like u adag oo xag jir ah oo aan dadka maskaxdooda laga guurin karin oo xun oo dumarka bahdila oo dumarka abuse gareeya oo dumarka wax kasta xun ama liidmaha u fududeeyay in lagu soo biyo Soomaaliya waxay ku jirtaa wadanka labaad oo dumarka xuquuqdooda lagu tunto adduunka wadanka labaad I think wadanka koowaad inuu Hindi hadaan qaldaneen second Soomaaliya Soomaalida lama soo marsiin karo wadanka labaad ba ku jirta Soomaaliya oo dumarka lagu abuse xuquuqdoodana lagu tunto marka wadanka hadii aad joogtid maxaa laga rabaa indhahaagu inuu furan yahay inaa foojignaata inaa gabadha kala caawisid alla may kula dhalato may maxaan ku shakraa hooyada ahaato gabaraa dhashay may ahaato mid habar u tahay mid saaxiibtiin may ahaato mid dariskiina may ahaato gabar si qaldan u socota hada artawani mid fudud hada arto like literally idinka hadaydan isgarabsan oo gabdhaha xuquuqdoodii like u dagaalimin cid idinkan xaysan ma jirto nimankan waa wuxuush mana idinkan xayaan waxay rabaan way suubinayaan wax kastana way xalaaleysteen iyaga dawladda ku jira iyaga kulahay anaga diin qaana maxaa aad ku diiday inaad diinta baratid yaa ku diiday gabadha maanta hooyada ama baheed like madrasada wiilka gabadha waa la wada geeyaa Soomaaliya wax ay ka siman yihiin oo gabadha iyo wiilka la geeyo madrasada jirta waxa laga yaabaa wiilashan iskuul loo diro gabadha aan loo dirinin laakiin madrasada waa la wada geeyaa adiga yaa ku diiday inaad diinta baratid yaa ku diiday qofna diinta baro iskuul aad wax baro gabadh hadaa aragto maxaan ku shakraa kala caawi idinkii isku tashtay idinkii is caawi idinkii foojignaada nimankan waxay ka naxayaan ma jirto wax kastana iyaga wax kastana iyaga sharciyeystay wax kastana iyaga xalaal ka dhigtay xaraan iyo xalaal iyaga ka dhigtay iyaga xalaal ka dhigtay marka intaas aan idin leeyahay gabadha yirista oo dhimatan Ilaahay ha u naxariisto awalba ilmo iska yar bay ahayd 19 years qof jiro qof weyn ma ahan ilaahayna dadkii dhala samriga iimaanka ka siiyo iyo wixii ay qaraabada iyo wixii garanayay waa dil xun sida ugu xun oo loo dhinto way qof intii la kufsaday haddana dil loo geeyay
marka gabdhow please indhihiina fura, please indhihiina fura. Intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Please YouTube-kayga haddaadan hore ila joogin subscribe, share, comment, asxaabtaada la share garay. haddii ay la joogtana welcome. Videoyaal baan duubay kale isbuucaanayta insha allah. weli ma aanan edit garaynin, waa edit garaynaa waan idin soo gelinayaa. Wassalaamu calaykum.